kulanti wacan wanaagsan khiyaarta naga daawata janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira labadan janaal hadaan kale waxaad idinku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xaray qarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran ku goosgoosada heesaa laga soo bandhigay waxyaabahaas dhan alla bixiso ilaha karan wala wadaag kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilayska xogaha meel walba joogtaan hawada waxaa idin kalena maalin wanaagsan waxaa idin kaga mahadcelinaynaa alaabasad muuqaalada aad ula falgashaan sidoo kale leegta asxaabtiin aad wala wadaagtaan hadda warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa jiraaga Dulkar Salmaan ayaa wuxuu ka falceliyay in filimkiisa King of Katha la barbardhigayo filimka Allu Arjun ee Pushpa The Race. Dulkar Salmaan filimkiisa King of Katha ayaa wuxuu yahay filim markaan xiiso ka dhaxlay kaas oo soo kala door muhiim oo jiraagan kaga soo muuqan doono kaas oo dhameysan arrimaha dagaalka iyo sidoo kalena in qof nafsi ahaantiisa oo halgan u galay in noloshiisa meel fiican ku soo saar sidoo kale awood u hanto filimkaas ayaa sidoo kale wuxuu mid la daawan doona Agoosto 25-keeda xilliga lagu guda jiray xafladda filimka lagu xayeysiinayay ee Jannah ka dhacday Dulkar Salmaan wax laga weydiiyay sida filimkiisa oo la mid yahay filimka Allu Arjun ee Pushpa The Race ee qaybtiisa koowaad waxaana jiraagan ku jawaabay in arrintaasi amaanata asaati wuxuu kala qeexay in filimkan uu yahay mid aan koobi ahayn wuxuu sheegay inaysan jirin waxyaabo saameyn ah oo ku yeelan karo soo kale waxaan jeclahay uu sheegay doorka Bani iyo soo kale jiraa walba doorkiisa iyo bandhigiisa saati wuxuu sheegay filimkan inuu shaqadiisa ay socotay tan iyo 2019 waxaan filayo sheegay xitaa inay ahayd mid ka dheereed muddo 3 sano ah waxa soo kale maqlay uu sheegay in doorka filimkaasi uu yahay door la barbardhigayo filimkaas soo kale wuxuu ahaa qorshe in aan ka shaqeyno filimkan asaati wuxuu sheegay in maqlay in filimkan la barbardhigayo filim kale sida Pushpa wuxuu sheegay in taarintaas amaan asaati wuxuu sheegay in iyaga isku dayeen in ay film ay koobi gareeyaan wuxuu sheegay in ay tahay mid cad waxyaabaha uu Pushpa uu sameeyay sidaas ayuu jiraaga ka sheegay xilli uu ku sugnaa Jannah filimkiisa xayeysiin uu sameeyay filimka Pushpa Allu Arjun ayaa wuxuu ahaa film oo ahaa mid garweyn leh sidoo kalena oo door la yaab uu kaga soo muuqdo shaashada filimkaas ayaa director waxa ka soo kumara qaybtiisa labaad markaan xiiso la sugan halkiis ka sii wada doona taxanaha hidka noqday markaan ku hadalna filimka King of Katha Dulkar Salmaan ayaa dhamaan waxa uu sheegay in uu safar fiican ku soo qaatay xilligu filimkaas uu sameeyay wuxuu sheegay filimkiisu inuu yahay filim u dhameystiran doorar kala duwan wuxuu sidoo kale sheegay inuu yahay filim loo sameeyay miisaan culus taasoo qof walba ay ka heli doonto filimkan ay director waxa ka Abhilash Joshi kaasoo King of Katha wuxuu yahay mid ay kala soo muuqan doonto Aishwarya Lakshmi Sabir Kolakarkal Ibarasana Neela Usha iyo Gokul Surkesh kaasoo door muhiim filimkaas ku leh filimka goosgooskiisa ayaa la soo fasaxay asagoo ah mid xiiso leh filimkan waxaa la daawan doonaa 24 Agoosto ee 2023 dhinaca kale daawad waxaan isla eegi doonaa jiraaga Sunny Deol ayaa waxa uu ka hadlay guusha uu gaaray filimkiisa Gadar 2 waxaan qeexayaa ayuu sheegay in aan isla hadlin muddo sanadooyin ah directorka filimka xilliga uu ii soo dhacay telefoonka sidoo kalena uu ii soo baxay magaciisa ayaa waxaan arkay inuu isoo wacaya sabab la xiriira inuu yahay mid faraxsan saasi waxa dheh Sunny Deol intaas kadibna waxa uu sheegay inuu yahay mid aad u faraxsan waxaanu sheegay in uu iga weydiiyay qaybta labaad ee filimka Gadar taas oo ogaaday in ay tahay in markaan ay daawadash aad kaga heli doonaan qaybta labaad wuxuu sheegay in ay tahay labada qayboodba mid labada generation ama labada jiil ay yihiin kuwa aad ay kaga heleen ee qaybaha waxaan soo kale sheegay in arrintan ay tahay mid uu filimkan uu ahaa in laga shaqeeyo soo sheegay in uu dambeyn ay ka shaqeeyeen wuxuu sheegay xilligan dib u milicsano Sunny Deol lacaga uu soo xareeyay filimka Gadar 2 ee maalintiisa koowaad ee waxa uu sheegay mid aad u farxay soo kale waxa uu sheegay Gadar oo ahaa mid Sunny Deol aad kaga qoslaysiiyay wuxuu sheegay in ay mid aad ugu faraxsan wuxuu ku jawaabay ayuu sheegay in ay ahayd mid uu jaceelka dadka ugu qabaan iyo soo kale awood oo ay ugu banaystay Sunny Deol ayaa wuxuu ahaa mid uu qaabka sida uu ahaa qaybtiisa kood filimka markii ay guul ay gaareen taasoo dareenkiisa waxba aysan iska bedelin ilaagan ay soo kale waxa uu soo hadal qaaday in dadka markaan ay ugu yeerayaan baaji taas oo la jeedo in wali uu yahay qof uusan dareemaynin da'weyn inay kortay wuxuu soo kale sheegay in wali isku arko qof aan ahayn qof weyn oo dhalinyaro taasoo sheegay inuu sameeyo karo door walba soo kale wuxuu sheegay inuu shaqadiisa uu qaban karo sida ugu wanaagsan kaas awood u hayo in uu marka laga soo tago da'diisa
jilaagan ayaa markaan ku raaxaysanaya guusha filimkiisa gadartu kaas oo wacdara dhigay filimkan ayaa wuxuu ka talaabay 300 oo koror asaguna noqday filim guuleysta sidoo kale taariikhooyin dhigay maalmihiisa ee tiyaatarada filimka uu saarnaa dhinaca kale daawada waxaa soo eegi doonaa jilaaga Akshay Kumar ayaa markaan waxaa la sheegay inuusan waxba lacaga ku qaadan filimka Oh My God 2 inuu sameeyo filimka Oh My God 2 ay wuxuu yahay filim si wacan kaga gadmooy qaybaha tiyaatarada filimkan ay sidoo kale wuxuu noqday filim weli aan gaarin 100 koror asaatee filimku waa filim hid dhameystirana kaas oo filimkaas budget macquul ah lagu maalgeliyay taasoo ka dhigan in Akshay Kumar filimkan uusan wax lacaga ku qaadan taasoo ka dhigaysa in filimka markaan uu guul u gaaray sida uu sheegay CEO-ga iyo soo saaraha video committee ee Ajit Andere kaas oo soo kale sheegay Akshay Kumar uusan wax lacaga ku qaadan doorkiisa filimkan Akshay Kumar ayaa doorkiisa filimkan wuxuu ahaa filim muuqaal kooban ee doorka loo shifa asaati wuxuu ahaa filim muuqaalkiisa la kordhiyay taas oo sidoo kale ka dhigan Akshay Kumar uu ahaa filimkan mid aan lacag aan ku qaadan sida uu sheegay Ajit Andre kaas oo la hadlay shirkadda Pink Film filimkan ayaa budget hoose lagu maalgeliyay taas oo sidoo kale wuxuu ahaa filim xiiso leh kaas oo sidoo kale noqday filim wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada filimkan ayaa waxaa la sheegay in 50 koror lagu maalgeliyay taas oo ahayn war rasmi ah asaatee wararkii warbaahinta qorayso ayaa sidaas ah filimkan Oh My God 2 ayaa director waxaa ka Amit Ray kaas oo soo kul ku saabsanaa mawduuca muhiim ah oo ku saabsan arrimaha barashada galmada kaas oo ka soo muuqdeen Pankaj Tripathi iyo soo kale Tisha Yami Gautam oo doorkeedu ahaa lawyer kaas oo la daawaday Agosto 12keeda waxaana isku dhacay filimka Gadar 2 hadaba daawada waxaan ugu dambeyn raacsan doonaa filimada tiyaatarada saaran sida Oh My God 2 iyo filimka Gadar 2 hadaba waxaan ku bilaabi doonaa filimka Gadar 2 kaas oo hogaamiye ka yahay Sunny Deol filimka Gadar 2 ayaa wuxuu noqday filim soo kordhiyay score jimcadiisii labaad filimka Gadar 2 Takatha Continuous ayaa wuxuu si fudud ku noqday mid score badan burburiyay jimcadiisii labaad kaas oo filimka uu la imaaday 20 koror nadiif ah waxaana u dhigantaa 352,716 ee dollarka Mareykanka taas oo jimcadiisa labaad filimka oo la imaaday filimkana waxay ka dhigaysaa filimka labaad ugu weyn ee jimcadiisii labaad lacaga waaliyaha la imaada kaliya waxaa ka wanaagsan filimka Bahubali 2 The Conclusion kaas oo soo kale lacag ka agdhow sameeyay jimcadiisii labaad filimkan ay si wacan wuxuu isku celiyay qaybaha Maharashtra kaas oo soo kale filimkan si wacan isku celiyay filimka ayaa bandhig hoos ka sameeyay qaybaha koonfurta ee West Bengal kaas oo soo kale marka la rabo bandhigo isbuuciisii maalmihiisii hore filimkan ayaa sidoo kale wuxuu ahaa mid si wacan isku celiyay qaybaha Hindiya ee filimkaasi laga daawado halkaas oo lacag fiican filimkaasi ka soo xaray soo ka filimku wuxuu ku wacnaa qaybaha Gujarat iyo Saurashtra halkaas oo wacdaro uu ka dhigay filimkan markan lacagiisa guud waxay marayaan 302 koror taas oo dhiganta 5,326,014 ee dollarka Mareykanka filimkan ay waxa loo arkaa in 70 koror ay siraaci doonto maalmihiisa 3 maalin ah taas oo u dhiganta filimkan isbuuciisa 3 maalin in wacdar kale uu soo kordhin doono filimkan oo hogaamiye ka san doono qaybaha caalamka filimkan ayaa lacagiisa waxay ka talaabeen ilaa 4 milyan filimkan isbuuciisa koowaad wuxuu la imaaday 282 koror jimcadiisii labaad filimku wuxuu la imaaday 20 koror nadiif ah taas oo dhiganta 352,716 ee dollarka Mareykanka filimka wadartiisa guud waa 302 koror taas oo dhiganta 5,326,014 ee dollarka Mareykanka waxaa si raacsan doona filimkaasina tiyaatarada la saaran ee Oh My God 2 kaas oo hogaamiye ka yahay jilaaga Akshay Kumar Oh My God 2 ayaa wuxuu noqday filim si wacan isku celiyay jimcadiisa labaad wuxuuna soo xaray filim ka agdhow lacagaha oo leemada maalintiisa Khamiista taas oo leemada 5.50 koror taas oo dhiganta 96,996 ee dollarka Mareykanka filimkan aweertiis guud waxay ka dhigaysaa 84 koror taas oo dhiganta 1,476,999 ee dollarka Mareykanka filimkan wuxuu xaqiijiyay inuu yahay filim hid dhameystirana filimkan ay soo kale wuxuu ahaa filim lacag fiican ka sameeyay qaybaha Hindiya asagoo soo kale filimkan uu noqon doono mid tartan laga doono filimka Dream Girl 2 kaas oo soo kaasna tiyaatarada koray filimkan ayaa waxaa la sheegay lacagiisa gaari doona cimrigiisa 125 koror taas oo ka dhigaysa filimkan uu noqdo filim guuleysta filimka isbuuciiskood wuxuu leeyahay 76.25 koror filimka jimcadiisa wuxuu leeyahay 5.50 koror taas oo dhiganta 96,996 ee dollarka Mareykanka filimka wadartiisa guud waa 83.75 koror taas oo dhiganta 1,476,999 ee dollarka Mareykanka
inta aan kusoo kabana daawad warbixinada muuqaalada aan ku qaada dhigana wararka ugu dambeeya maanta laga xariiqay qarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo astaan waxay wararka ugu dambeeya la wadaagi karteen daawadaashana ku taxan barta tusmada filimada iyo soo kale barta kale ee isku xogaa meel walba oo joogtaan hawada waxaa idin kaleena maalin wanaagsan hadda warbixinada ka shaqeynaa soo saarka saxaabtan la wadaaga kan gees xigana sidaas nabadino